wiilan hooyadii walwalcina wiilal kala dhalin harsan waayo hawli joog noqoy laasanoodna isaga leh ma hooyadiina leh maxaa idinka galay waan wasma idoo rabnaa maxaa noo daba joogtaan wixii hore u guursateen baa sadqa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad ilaahu in si iyo injinba waa ka magan gal doorkii qooqaya baan uga jawaabayaa dooxooyinkii qardhood oo ha qooqaynayay ku qooqayaan kan cali samatar bay ku qooqayaan cali samatar bay ku qooqayaan oo wiil harti ah oo wiil warsan galiya oo wiil sardano saldana intaas oo sana haysta 300 oo sano in ka badan saldana ka jooga iyadoo wadanka saldana baan la aqoon dal garaada garaadkii laga celin waayay niman iyo naago iyo door garaadka karbaashku u geystay bay door la qaynanayaan hadda waxay dhaheen gabar garaad kula dhashay fiqishan maxaa fiqishanaya garaadka kala galay fiqishanaya garaadka markuu fiqishan garaadka wax la wadaago de aniguna waxa weeye ma fiqishani baan ahay marka barina amaal ba fiqishanaya kolba soo qoraysaaneen xaaladdu waa idinka halowday hore baan idin sheegay hadda wax sheegaysaan war shiilan oo nasabad leh baa la sheegaa oo qofka waxaad ka hayso baa lagu caaya laakiin waxaan jirin dadka lagu caayo karbaashku idinku dhuftay iyo qoomoluud iyo qoralka wada furtay iska daaya waxa diintu maanacday u idin yiri iyo gabdhaha hore aad u guursateen oo harti uu yiri ma geedaanina waa la idinka qubaynaya baa horta baa cali samatar ku baxsanaysaa garaadka intaas ku baxsanaysaannin garaadka rabbi baa ka taxadiray ilaahay wuxuu ka taxadiray markuu daarood ka dhigay oo intuu daarood ka dhigay harti ka dhigay oo intuu harti ka dhigay garaad ka dhigay isna rabbi baa ka taxadiray wixii aad garaadka ku hadasheen ama aad tiraahdeen garaadka anaga ka xarsinay idoorow guurna ma lihidin wax guur la dhooma lihidin gabdhaha hadda haysataan kufsi maxay dhaamaaneen gabadha hargeysa maanta ku nool oo walaalkeed guriga lagu dumiyay oo hooyadeed guriga lagu dumiyay oo caruurtoodii la laayay oo garaadadeedii la caayayo maxay ku nooshaa gabadha hargeysa maanta ku nool qabtaani mid ma had ambaasho kala taamaha ma sheegayo laakiin gabar sidayda damiir leh oo maanta hargeysa gudaheeda ku nool alla maxay ku nooshaa huquuq bay ku nooshaa maxay ku nooshaa saada cali baa dad idin dhashay saada cali qabriga kala soo baxdaan saada waa sharmuuta waa tirahdaan fiima qooja dad idin dhashay dadkii idin korinaysa habeenaya maalin waa haysataan oo waa caaysan kufsiga iyaga maxaa idinka galay kuwa ka haysateen baa kufsi iyo hoog iyo halaag ba kuwaas aamutay kuwaas hoog iyo halaag mutay kuwaas waxay rabaan in la xoreeyo wasaqdiina laga qasaalo laga mayro maxaa kufsiga iyaga idinka galay hadaanu harti baana isku fsanayno iyo hadaanu saaranayno iyo hadaanu laascaanood gubayno maxaa kiina daba galiyo idinka galay laascaanood idinka al-shabaab aha idinka madaxa duubanayay idinka dadka leynayay dadka aleynaysan baanu ka reysan laascaanood cid haday naga dhimanayso wiil qaliso 100 saaqa dilay baa dhimanay markuu 20 dilo 20 kaas raacaya haduu laga dhimanay kaas ku dhimanay laakiin wiil kibir loo dilo madaxa loo soo duubtay xamar baa idinka reysatay aawa qariix xamar ka dhacay boqolaalka qof lagu dilay nabalay waa la waay meel shabaabka buura ka soo dagay waa la waay waxa soo idinka yahay Soomaali waxa idinka ka gaday Soomaalida waxa idinka ka gaday waa la idin ogaaday maantana ceergaaba isu yeerato caalanka Soomaaliya laga babi maantana ceergaaba caawana gubanaysa ayaama ka horna waxa gubanaysa oo dadka lagu leeyahay meesha la yiraahdo Boorame Soomaali waxay noqonaysaa Soomaali waxay noqonaysaa Soomaali sool ka samra ma jeerteen baa soo galay ma jeerteen baan haystoy baba wiilan hooyadii walwalcina wiilal kala dhalin harsan waayo hawli joog noqoy dhulbaante maalintii ma jeerteen la dhashay baa hub iyo hanti iyo saanad iyo dhiig iyo ficil maalintaas ilaahay siiyay ma jeerteen baa la dhashay maxaa idinka khusay laascaanood ama isku kufsano ama isku saaran cali samatar afkiina qurmay ka daasta cali samatar baarqab weeye maaha wiil laalush qaata maaha wiil dhigiisa iibsan ka dhaani maaha wiil dalkiisa iibsan ka dhaani magaalooyinkooda inta ay degan yihiin waa la yaqaanaa ilaa baran ilaa ceergaaba inta ka degan yihiin wadankay degan yihiin waa laandheerayaal weeye afka cagin kala dhaxal oo dhameeyay idinku duminayay oo idinku leenahay ceergaaba dhexdeeda ka wiiraasaysa cali samatar cimrigiisa Allah raaji cali samatar baarqab weeyaan ku yiri buudkan habeen iyo maalin weyn la daba maray habeen iyo maalin weyn la dul maray habeen iyo maalin maxaa idin soo haray abwaankii ninkii la oran jiray Faarax Ali Nuur abwaanku carabkiisu dhulbaanta ku kicii see yeelaysan dhulbaanta intuu isturtaago in tolaay buusaa weer ugu xiray baan ku wixii laascaanood ka dhacay isaga ka sameeyay abwaan Faarax isaga ka sameeyay
حبارتما حبار عجوسة ما أركي وحلا سونتهاي إن أبيد أو ناسا سارسة أو أبوان فرح سو حبارس أبوان فرح رجع سبوكي بس أنا ما يسقى عليه هو يدين عليه ما حد يكجري يا رجع سبوكي تلا يبيجري والدين لاي باي ده هاي بورا فولا بيأكلوا ليستا بينك واكن يا واسدا صدق أصلا دارتي سكوم غليسين يدوروا يا wax idin yaala sool ma jiraan sool waxba idin ma yaalin ama habeenkii anagu aanu isku guurayno ama aanu iswasno ya ma waanu wasba idoo rabnaa maxaa noo daba joogtaan wixii hore u guursateen baa sadaqa hore wixii ay u guursateen waa gowracina maxaa ku sugayay idinka galay war ilaahow inuu imtixaan war inuu ma samra aqoon nimayo samra sool waxba idin ma yaalin ka samra wax idin yaal ma jiraan ya cali samatarna waa wiilka kibray sool la isaga xoreystay gaangis weeye gacan qaad wayga in lama yeelan wixii gacan qaad in la yeeshana waa uu necab yahay ya in cambaashi iyo afarta faraqaad ka haysateen madaxa u salaax isaga waxa maqaday waxa ku soo bodo dhikaro meel cidlaabiyaal isaga dhuunya marna naagaysta wax kala taan oo idin hayna ma jirto wiilashada fariidada ah hadii cali samatar yahay haduu janaan asad yahay haduu abwaan cali nuur yahay ya ish indhihiina cadcad baa laga caafsaa waxaan ka hadlayaa halkan wiil la yiri wuxuu watay xisbi oo maxaan ku sheegay mustaqbal ugu sheegay gaalka ay ka hadlaan mustaqbal waligeed ma maqleen wiilkaas wuxuu yiri ya ma asad baa doorasho soo gali kara see doorasho soo gali kara ninkii baa saxsadeeyay ya wara ninka aad haysataan in aad ku masayrteen wiilashii la leekay oo dhan iyo wixii lodkiisa soo ku soo dhawaad dhan waa hinaasay sidii naagay bay masayreen ya wuxuu yiri oo Muuse sidii dumar wada qabaxan baan la iska deyneen warinkaas waa idin ka hormaro konton sano idin ka horeeyaan ninkaas waqtigaad mobilada furanaysa wiilka la socda hadda xisbiga horboodayo xilliga mobilada furanaysay ninkaan jaran buu ahaa intii madaxweyne Soomaaliya waa la soo shiray ninkaan madaxweynaha Mareykankana waa la shiraa adduunka albaab laga celiyaa ma jirto adduunyada uu soo wali xilka Soomaaliya buu ka gadan ya meesha mobile la furan hada artan gurigiisa in la birilqaysto oo ka cararana ya de muxuu horta carar ma u dhashay ninku waa dhashay boqor Cismaan iyo Keenadiidi ninku waa boqolkii dhuwe boqoloo waay carar ma u dhashay boos hadii lagu hujuumay ya oo mab lagu hujuumay gurigiisa la dabcin la hujuumo de afcas buu afka idin ka sii ya nin dhulkiisa la qaadan karo nin gurigiisa la qaadan karo nin xiniyiisa la qaadan karo nin caruurtiisa la layn karo ma ninku abay duray uu gumaysi diiday abay duray uu gumaysi diiday abay dubay faratal muxuu yiri ya markuu ka gabiyaayay ya jahad baa igala wacan intuu 10 jahad ayo 10 intuu 10 ka dagaalamayo waa nin jahad ogol oo dhimasho ogol ma aha nin bidikaalaay nin miskiina ya xisbiga wadataa xisbiga waxa la horboosay asabciidiisa ma Puntland baa ka dhageysanaysa Puntland miyaa ka dhageysan Puntland kii al-shabaab ka saaray markii jeerasha la jabsanayo buuraha laga soo dagay ninkii uu hiilinayo safaynayo way ninka la toma ninkii masaakiinta quudinayo way ya ninka abnigiisa ku jifta way ya marka adigu darbiyada taagnay mobilada furanaysay ninka dhigiisa ku jifta way xaanu kugu aaminaa kugu dooranaya yaa ku dooranaya mustaqbal waad yaa ku dooranaya dalka ninkii uu madaxda u ahaa ciidiisa la soo taaganta darbiyada ma doorasha campaign baa lagu galaa waxa xisbigana aad wadana meel baa kaga dhacday yareeraha sheegana soo reerayay labada meel baa kaga dhacday tuug baa tay daalina ragi doonaya baad nahayd guriyahayaga iyo xiriyahayaga iyo caruurahayaga inay dhacaan saawninkii baasaasa saa ka yeelay boosa masaga lagu diray masaacid ku soo duulay dadka beenta maxaad uga gadaani wixii socon kara baa lagu hadlaa sharaab yadabta iyo akhlaaqda hagaagsada akhlaaq baydan lahayn ma gaari kartaan fariyaradiisa xataa ma gaari karaan fariyaradiisa waxba la baray waxbuu yaqaan diin buu leeyahay dhaqan buu leeyahay karti buu leeyahay dadnimo u dhashay ka awow haysto wax gumaysta ma waligii lama gumaysta adduunka intuu sayidka adduunka haystay isagoo dhaaranayo waa lagu gadaal horaya guriga reer nuure ya ma jeertaanka kale inaan ku gudo wayga garan nuugabi ma jeertaanka kale tawa sayidku wuxuu ka soo qaaday waxaan jirin ya Ismaaniya waxaan gaadaya gabanadiisii rag la yiri buu ahaa asad ma ahay wiil miskiin oo meel iska taagan oo maxaan ku sheegay mobile furanay edaabta la ilaaliyo akhlaaqda